xasan asigoo ku jiro degnaansho ayaa hal mar madaxa wax looga dhuftay waxaana la geeyay isbitaalka 4 qof ayaa laga shakisan yahay dhammaantooda waa xasan dariskiisa wow kuwan wala deyi karaa maria aniga banaanka ayaan jiray waxna kama ogeen hanad aniga studio cusub ayaan sawirayay faarax baawurkayga ayaan hagaajinayay safiyo 3 saac ee u dambeysay aniga ayaan isku mashquulsanay fiiri dhammaantooda gacmahooda isku day inaad sheegtid qofka beenta sheegayo hanad wax ayuu sawirayay dabcan faaraxna baawurkiisa ayuu hagaajinayay labadaba waxay gishnaayeen galofis dhinaca kale safiya gacmaheeda iyo faraheeda malahan wax calaamad ah sidee suurtagal ku tahay haddii ay isku mashquulsaneed in la waayo calaamadihii gacanta oo ahaayeen kuwo dabiici ah safiyo waad xiran tahay sababtoo ah gacmahaaga ayaa shakiga keenay waxay ahayd maalintii uu ka bixi lahay maxamed isbitaalka halkaas waxa uu ku qaatay bilooyin badan isbitaalka waxaana la geliyay qaliino kala duwan dhakhtarkana waxa uu sheegay inuu maxamed fiican yahay oo iska bixi karo laakiin wiilka ma uusan aaminin warkii dhakhtarka asigoo iska socdo wadada wuxuu ku dhacay naag war maxaad iigu dhacday miyaadan ii arkeen way ku qaylisay maxamed hab ayuu siiyey naagtii laakiin sabab maxamed dhagaha ayuu la'ay ma uusan aaminsanayn inuu wax maqli karo markii uu maqlay inay naagta ku qaylinayso ayuu rumaystay in dhakhtarka uu run sheegayo laga yaabee inuusan dhakhtarka ku qaylin dambi baare ayaa wuxuu bursanayay dambiile si degdeg ah ninkii waxa uu galay isbitaalka no 100 qol ayaa meeshan ku yaallo laakiin waxaa da'ayay roob ninka lugihiisa waxay ku sawirnaayeen dhulka dambi baarihii waxa uu raacay saanta wuxuuna galay qol yar oo ay 3 qof ku jirto dhammaantooda madaxa ayaa wax ugu xiran yahay laakiin mid ka mid ah waa dambiilihii waa kuma waa midka dhaxda ku jiro uguma dhagno sariirta warqadii cadeynaysay inuu yahay bukaan maamulaha shirkadda ayaa wuxuu u yeeray askarta wuxuuna u sheegay in Faadumo ay xaday memory card oo muhiim u ah asiga askartu waxay aadeen Faadumo gurigeeda Faadumo waxay u sheegtay askarta inay warqadihii ugu muhiimsanaa inay uga soo tagtay xafiiska markii ay askartu u soo noqdeen Faadumo waxay diyaar u ahayd inay baawurkeeda ka haysato askartu waxay xireen Faadumo markii ay baawurka baareen waxba maysan ka helin mid ka mid ah askarta ayaa gartay meesha ay memoryga gelisay ma soo saari kartaa adiga markii ay askartu u yimaadeen koodii hore timaheeda hoos ayay u degsanayeen intaas kadib Faadumo way badashay nashqadii tinteeda meemorigana waxa uu ku jiraa madaxeeda cali asiga oo wadada maraya ayuu meer daboolmay si lama filaan ah waxa uu soo kacay asiga oo qol dhex jiifo albaabka agtiisa waxa yaalo kombiyuutar shaashada kombiyuutarkana waxa ku qoran haddii uu ka jawaabo albaabka uu furmayaa sidaan ayuu u qoran yahay waxay ka dhigtaa 2 qof asiga kaligiisa waa maxay sheegaas cali si fudud ayuu uga jawaabay albaabkiina waa uu furmay waa maxay jawaabta waa miyaaradda wax kale ayaan ka fikirayay laakiin waa ayada 2 saaxiibo ah Zahra iyo Layla waxay yimaadeen timajaro qaali ah mid ka mid ah shaqaalaha ayaa 2 gabar u sheegtay inay diyaarsan yihiin hal style wayna ku qanceen laakiin markii loo bilaabay hawsha 2 gabar mid ka mid ah ayaa timaheeda fake ah soo saar waatee labadaba jaritaankooda waxaa loo adeegsanayay maqas waana isku mid laakiin midka kale waxaa loo wadaa sunta cayayaanka waad fahmi kartaa